kulanti wacan oo wanaagsan idin lahaantiin baa daawadayaal meel kastoo aad naga daawanaysaan waxaad ku soo dhawaataan barnaamij aanu ku falanqayn doono marxaladihii kala duwanaa ee ay soo martay saxaafadda Soomaalida iyo farqiga u dhaxeeya wariyaasha caanka ah ee soo shaqeeyay ka hor burburkii dawladii dhexe ee Soomaaliya iyo waliba wariyaasha haatan shaqeeya haddaba maxaa laga baran karaa rugcadaayadii saxaafadda waxaana barnaamijkan nagala soo qayb galay isla markaana nagala qayb qaadan doona wariyaal muddo badan soo shaqeeyay isla markaana rugcadaayaal isla markaana ka soo hawlgali jiray warbaahinada kala duwan ay kamid yihiin Radio Muqdisho BBC iyo Radio Hargeysa waxaana kamid ah wariyaashaasi Maxamuud Sheekh Dalmar Yoonis Cali Nuur Aadan Nuux Dhuule Faysal Farfalle Maxamed Cali Waji iyo waliba gudoomiyaha ururka suxufiyiinta Soomaaliland ee Solja Maxamuud Cabdi Jaamac Huuto sidoo kale waxa barnaamijka nagala qayb galaya qaar kamid ah wariyaasha ka hawlgala warbaahinta ka jirta magaalada Hargeysa ugu horreyn balba hadaba su'aasha ugu horeysa aan ku iba furo barnaamijkeenan qaabkee ayay ku aasaasantay warbaahinta Soomaalidu waxaan weydiinayaa Sheekh Maxamuud Dalmar baan weydiinay su'aashaas bismillaahir rahmaanir rahiim marka la yiraahdo de warbaahinta ama waxay makabiid yahay inuu naqaano maanta sida uu yahay iyo sida uu ku bilaabmay طبعا duruufo kala jaadaba ahayd warbaahin marka la yiraahdo waxa ugu yaani tuuriya dheer ama ugu rida dheer waxa ahayd idaacada jaraa'idku waa jireen kama warrami karo oo runtii de saxaafadda qoraalka ah inta badan kumaanu soo shaqeyn laakiin de taariikhan waxa la og yahay idaacad sida aan de walaysixi doona hadii aan qaldamay idaacad af Soomaali ku hadasha oo dadka gaarsiisa Radio Hargeysa oo Radio Kudu loo oran jiray baa la yiri aan u maleynayo inay dhowr iyo 40kii wixii uu ka dambeeyay dagaalkii labaad ee adduunyada dad baa ka shaqeynayay intii marka ugu mutacallimsanayd oo laga yaabo inay department kale oo tacliinta iyo xitaa caafimaadka iyo meel kale ka yimaadeen waxay soo socotaba Radio Muqdisho waa la furay baan u maleynay inay koob iyo kontonkii inkastoo la oranay Aadan Nuux Dhuule xaq u darsaadu waxaan filayaa sida Maxamed sheegay waxaanu ka warrami karnaa waa jira waxaana de ka warrami karnaa waa jira oo de waa naga horeeyay waxa laga yaabaa waqtiga anagu iskuulada ku jiray de idaacaduna waa socday hatta markii aan la qorin way socdaan rag ka shaqeynayay dumar ka shaqeynayay markii dambe waa isugu nimid haddaan sii tixraaco Maxamed markii uu sheegay oo hamatay idaacadii Qaahira Sayd Axmed Sheekh Muuse oo ka hadli jiray qaar kaleba waa tii dhalisay runtii marka la eego laanta afka Soomaaliga BBC-da in la furo waxaana ku timi 1950 markii dareenkii gobonimo doonka qaaradda Afrika oo soo kacay ayaa keenay in marka la furo afaf maaragtay lagu la hadli karo dadyoogii joogay wadamada faraha badan ee isticmaalku haysay waxa ka horeysay tusaalahan hadeen soo qaadano afkii ugu horeeyay ee la furo mesela BBC-da kale waxa af Carabiga 1938 laakiin furitaanka afka laanta afka Soomaaligu wax iska yimahayn waxa ahayd culayska yimi ee la doonayay markaas in dadka lagu la hadlo ayaa keenay in laanta afka Soomaaliga BBC-da la furo waxaana jirtay in halkan la fahanteeda laga codsaday oo ninkii governorka ama barasaabka ahaa Ingiriiska loo oran jiray Theodore Pike baa loo oran jiray Maleynaya isaga la fahantiisu oo waraaqa qoray waxa kamid ah iyada la fahanteeda in ururkii ama xisbigii loo oran jiray NUF oo kamid ahaa Michael Mariano iyaga la fahantoodu inay waraaqa qoreen oo sidaa deetana wasaaradda arrimaha dibadda ee dalka Ingiriiska culays lagu saaray in la furo ujeedada loo sameeyayna markaa waxa ahayd idaacadda ka soo hadlaysay magaalada Qaahira oo kuna beegan waqtigaas marka la eego de waqtigii Jamaal Cabdi Naasir ninkii loo oran jiray Masar uu talinayay oo maaragtay ololaha horkacayay waqtigii inaantay Suez Canal ku dhacay la fahantiisuna ay ku beegnayd taas ayaa keentay markaas in BBC-da oo kale laanteeda af Soomaaliga la furo iyada la fahanteeda waqtigaas waxa soo gashay meesha waa waqtigii gobonimo doonkii waxa iyada qudheedu dareenkeedu kor soo kacay dhulkii Ethiopia ka tirsan markay Soomaalidu deganeed oo Ethiopian kala fahantoodu waqtigaas xukunkooda ay ku soo fidinayeen
marka siyaabaha caynkaas inta waa ka sheegi karaa waxaana keentay markii dambe in la furo maaragtay idaacadda inaantay BBC-da 18 July Soomaaliya 1957 wariyihii ugu horreeyna de waa garanaysaano Xaaji Cabdi Ducaale mar dambe ka hadli doonaa weelata isaga la fahmay waayahay Yunus Cali Nuur laftiisu intaasi aadan iyo Sheekh Dalmar maxaad ku dari kartaa waxaan ku dari lahaa horta inta ay ka hadleen waa bilowgii warbaahinta casriga ah laakiin sideedaba warbaahintu inta aad bay uga daaweynayd oo bini aadamka bay kamid tahay ma ogtahay dhaqankiisa iyo noloshiisa in ay wax isku diraan oo isgaarsiin war kala qaataan Soomaaliduna la midun bay ahayd waliba iyadoon af qoran lahayn dhaqan afeedkooga waliba u sahli jiray in ay war isku diraan war la kala qaato oo sahan la diro oo laga war doono magaalo iyo xaalkeed oo faras la fuulo oo la isku soo noqdo oo deedna la kala qaato warka oo gole la isku yimaado dhaqan ay lahayn bay waligoodba dhegtana aad bay wax uga dhageysan jireen oo hataa dhulkan la yiraahdo Crimeanka imika kamid ah xagga Ukraine hoosteedii iyo berigii hore Ruushka iyo dawladii beriga jiray ay isku leeyin jireen iyadoo oo aanay Soomaaliya beriga tacabiri ba jiray buugaagtii hore Ingiriisku qoray waxaad ku arkaysaa in la socday wixii Crimean War-ka la oran jiray waa qarniyadii 18aad iyo meeyay dhulka beriga dhaqaaqadii ka jiray aad bay ugu lahaayeen ay dhageysan jireen warkana way kala qaadan jireen waa la kala ducaysan jiray markii ninku warka dhameeyo waxa la oran jiray moogtahay warkaaha jiro wiilkaaga wiilkiisu ku xir waxyaabaha mahmaahaya ay ku jirtaa gabayaday ku jirtaa war kala qaadashada iyo wardirista caynkaay marka ma aha dhaqan cusub laakiin warbaahinta cusub waa sida ay u sheegeen runtii waliba halkan Soomaaliland ay joogno warbaahintii ugu horeysay Soomaaliba afkeega ku hadasha radio ku codkii goodirkeena Soomaalidu u taqaanay dhowr iyo 7 sano ka hor ayaa ugu horeeyay oo radio kudubana Ingiriiska aad u yaqaanay hashan la yiraahdo adeeryada miyaan ala kudugu aadna Soomaalidu way ula qabsatay waayo dad dhageed bay ahaayeen maadaama aan luqadoodu qornayn wixii ku hadlaya af Soomaali idaacada aad bay ula qabsadeen inkastoo berigii ugu horeysay dadkii ka hadlay uu kamid ahaa aabihii waxbarashada oo kale iyo waxa la ii sheegay in ay qaado waa qof halkan kula fadhiya ayaa haddana meel ka hadlaya oo malaha maqaaxi halkan meelaha magaalada dhexdeeda ahayd civil center la oran jiray Maxamed Axmed Cali buu ahaa nimankii kala mid buu ahaa isagoo oo fadhiya idaacad meesha taloo sanduuq u ekay markii hore idaacad ma jirin woodaq baa la oran jiray sameecado ayaa magaalada meelaha la dhigi jiray sameecadahaas woodaq la oran jiray wixii barigii dambana ama hadal ama hadle ama ay dhageyso ama ay dhageyso la oran jiray ayaa malaha soo gashay radio-gii deedna ninkii meesha fadhiya odayaal baa yidhi war ninkan hadlay ninkan ahayn meewiya waa saaxir baa la yidhi ninka meesha waa lagala cararay sidaan maqlay runtii waa saaxir baa la yidhi ninkan nala joogeen arkanay haddana sanduuqa ka hadlaya marka sidaas laakiin anagu waqtigaan ku beernay waxa jira qalab casri ah oo dhisan oo radio-yadii وهاجا آدم بحث حسنا فليا waxaan ku darayaa wuxuu Yunus imika soo qaaday yani qofka ay leeyahay wax kan sanduuqa ka hadlaya waa maxay laakiin tusaale haddaan soo qaado matalan gabadhii ugu horeysay halka ka heestay guduudo ay waxay iga sheekaysay sidii ay fanka ku gashay waxaan filayaa barnaamijkan aan ku sii daynay waxay 1983 radio Hargeysa ku wareystay waxaan gadi staad ku gashay fanka waxay tir waxaan u shaqeynayaa reer dabeetana fanaaniintii loo oran jiray oo la Hargeysa ayaa gurigaasi music ku tumayay ku heesayay ana dibadaan joogay tiro Mariya iyo weel iyo xabaan meedii markii deetana ay joogsadeen heestay qaadayeen ayaan qaaday tir maanta dambe reerkii guriga lahaa gabadhii guriga lahayd ayaa lagu qanciyay inay soo kaxayso oo deetana si ay u heesto oo wixii ay ku heesto halkan oo kale sidoo kale weyn ayaa la halka gal heesta shalay tahay waxaad ku heesaysaa heesteetana kamankii waa la leegtay maalintii dambe waxa la yidhi waxa heesaysa gabadh la yiraahdo guduudo carwo waxaan ka mid ahaa bay tiri dadkii ku soo cararay
bal inaan dhegeysto gabadha waxaan filayaa sida qiyaasu tilmaantu haydna halkan civil centerka waxaan umanayaa ku dhow bacadlaha iyo meelaha ayaa lagu dhegeysan jiray malaha idaacadda waa tahay meelahaasina ahayd baan umalanaya aad baad mahadsan tahay dib baan u carabay deetana markaan gartay inaan aniga ahay waa tahay weji baan siin lahaa horta reeryogan ku dhow meesha horse laga dhegeysto waxay tihi halkan ay ka dhisan tahay dahabshiil ee kasoo horjeeda saldhigga bilayska ayaa makhaayada ka samaysnayd reeryo baa halkaa la saari jiray waa intaan silstarka la dhisan bay halkaa reeryoga la saaro nin quraashadii yaqiinay waana la sugi jiray markuu ka soo baxo shacabka wuxuu ahaa nin kuuga hadda magaciisa ma xusuusto laakiin shaariya surcad buu soo qaadan jiro gaalada uu ahaa kuug ninkii shidaya iman jiray markuu yimaado reeryogaa la soo saari jiray waxaa la saari jiray kabarka dushiisa 2 anteenuu lahaa oo waa dhib badnaa anteeno earthing oo dhulka lagu aaso iyo mid loo taago markaasuu wareejin jiray qararac markuu ku beegalaya waa kaa la helay maasha allah pilot waa de wuxuu la mid ahaa nin dayuurad duulanayo kale dadka halkaa daawanayaan waxay ka badnaan jireen dadka riwaayadaha daawada intooda badan waxay sugayeen inay arkaan qofkan hadlaya markaa ma jirin recordingku ee barnaamijyada ka baxaya radio kulu ama radio hargeysa oo markaa harleer ahaa live bay ahayn intooda badani oo waxay ku bixi jireen toos marka la bilaabay in recordingku bilaabmo ninka jinka la mooday xaaji cabdi ayuuba oo isaga oo soo duubay barnaamij sheekuna wuxuu salaad sax masaajid buu soo galay markaa nin soo dhegeysanaya masaajidkii ugu soo galay oo ninkan masaajidka laga saaro ninkani waa maaha insigu waayo haddaa soo dhegeysanay isagoo hadlaya in haddaan waxoogaa dib yaro taabtay inay say saxaafaddu ku bilaabatay wayunis baa yaro taabtay dee communication bay ku bilaabatay 2 qof markay meel ku kulmeen bini aadmi ilaahay abuuray ayaa war ay kala qaateen communication-kaasay ka mid tahay mediuna ingiriisku markuu dalka qabsaday ee soo degay ayuu inoo bilaabay kan casriga ah rag baa magac kula baxay oo reer wardoon la odhan jiray oo u kala qaadi jiray warka dhiisayga berbera iyo barasaabko sheekh fadhiyey halkay ku kala qaadan jireen warkay isku gebidaarsan jireen waa dharinta sheekh weli way dhisnayd meeshii yarayd ee labadaa nin lugaynaya ay waraaqaa isku weydaarsan jireen kadibna waxaa bilaabatay tii daasadda ee iyana announcement-ka ahayd ee magaalooyinka anuu raggaasana waa announcerskii u horreeyey ama wariyaashii u horreeyey waxay istaagi jireen magaalooyinka dhexdooda dubba yar iyo daasad bay sidan jireen oo odhan jireen ogeysiis waa lagu soo shari jiray wixii dowladdu ay tabinayso markaa ayaa laga qaadan jiray dadku isgaadhsiin jiray haddaynu soo qaadano saxaafadda dadku carabigu ku dhegeysan jiray barnaamijyada makhaadii magaca kula baxay baa hargeysa ka furan qaahiro oo kale waxaa loogu bixiyey sababtul carab ayaa laga wada dhegeysan jiray ragga carabida yaqaanaa way shaahayn jireen waayo warkaa carabigaad u turjumaysa qayb dhan dadna shahaagu bilaash buu ahaan jiray wargeysaduna afka carabigay kusoo baxi jireen iyana hal wargeys baa la iibin jiray dabeedna arday baa wada turjumi joogu akhri jiray somaliland bay ahayd manbaca inta af soomaaliga ku hadasha saxaafadda bilowgeeda hadday reeryo tahay iyo hadday wargeys tahay iyo mid kastaba waxaa runtii mudan inaynu soo qaadno oo aynu sheegno in dhismahan maanta radio hargeysa ku yaalla radioha da-weyni uu taariikh weyn ku fadhiyo 1953 bayd markii la dhisay waxaa lala dhisay airportka waxaa lala dhisay goodirka waxaa lala dhisay isbitaalka guud ee hargeysa waxaa lala dhisay aqaladan tuurtale ee dowladaha hoose oo dhan loo yaqaano waxaa lala dhisay state house-ka waxaa la keenay baabuurkii u horreeyay casriga ahaa beriga hargeysa oo ahaa hambar oo ahaa baabuurkii uu fuulay cigaal markuu ra-iisul wasaaraha noqday ee uu fuulay cabdirashiid ee uu fuulay muxuu ahaa ninkii la odhan jiray adan cadde ee uu fuulay cigaal baabuurkaasi wuxuu la fadhiistay 1974 ka xayiray salaasa number 4 isagoo fila baydhaba ku wada intiina halkan fadhidaa bal qaabka aad ku soo gasheen warbaahinteedii kale ku soo xushay ambaba lagu xulan jiray waqtiyadii hore yoonis baan ku bilaabi lahaa waa sheeko dheer runtii sidaan ku soo galay warbaahinta iyo iskuulka laftiisaba sidaan iskuulka ku soo galay waan xoolo moogaa oo halkan arabsiya dusheeda ayaa qodaal baa la yidhaha qodaalka oo markaa xoolihii laga raray laakiin riyo irmaan lagu soo reebay baa la ii diray waxar jiilaal dhalada inta garanayso ma garanaya aniguna waxbaan qorqori jiray oo carmada iyo dhirta iyo waxbaan qorqori jiray xoolaha uma foojignayn waxartii baa jeexjeexintay ku dhaadhacday baa guduudana iga cunay
deedna waxa la yidhi waa useless kale khayrba ma leh mastaafuriya arabsiyaa layga malcaamad baa laygu daray halkaasaa horta aan imika gududan iyo xartii baan u duceeyaa haddii kale waxaa dhici lahayd inaan iskuul ba celin gelin laakiin sidaan kusoo galay waxay ahayd mar horta sanadun baanu wada galnay intoonu ka baxnay aniga iyo sheekh dalmayada nuux dhowle iskuulka secondary Amuud intoonu ka baxno maxamar tagnoonu waqtigaa la kulannay askartii oo qabsatay xukunka oo kacaankii lagu dhawaaqay oo dadka loo diro xalane meel la yidhaaho berigaa yani waxaa muhiim ahayd qof walba inuu tababar military soo maro ayaa muhiim ahayd runtii iskuulladana waxaa laga qaadan jiray inta ugu horeysa ayaa la geyn jiray meesha deedna waxaa ciidamada la siin jiray mudnaanta waqtigu goormuha markaa waqtigu wuxuu ahaado inaan sheega ma jeclin laakiin ilaa 72 baanu ka baxnay ilaa 73 marka waxaan garanayaa annagoo xalana ku jirno la yidhi cadet officers baa la qaadanaya ruushkaa loo diray mar dad hadhow saraakiil noqda 140 miyaan ahaa qof baa la soocay nasiib inuu ahaday waqtigaa ku jiray Gilbuuj ka mid baan noqday waan diiday oo waxaan ma anu go'aan gaaban oo ma gelayo militariga yara diidana jaamacadii waxbaan doonayay sambaloosho oday leeyahay xirada haystayba 14 cishan xidhay aniga 10 kale 11 ka waxba u qaadan waayay nimankan yar yar imika waliba saraakiisha noqonaya ee militariga ee diidaya waaba useless iyaguna way isagu waxaan ku bilaabay buu yiri ciyaalkan la yiraahdo askar maroodiga ee xerooyinka moogta askar saxaabada ka dulcuna hambada ka dulcuna ku bilaabay runtii marka waa la yaabanay reero imika secondary ka soo baxay oo la yiri xidigaa lagu siinaya oo ruush baa lagu diraya oo diiday ninka riba ku arkay halka markaan marano ayaa deedna idaacadda aanu galay idaacadda waa laga yaabaa nimankan inay doorteen radio ama radioga anuma dooran runtii waxaan qortay inaan film actor noqonayo jila aniga weligeena waxa jireen tii unbaa malaha liiskii la igu daray dadka la geenayo warfaafinta sidaasaan ku galay runtii aadan baan isaga laftiisa runta ku darayo sidaa u sheegay horta sidaas waqti baan ahayn waxaana jirtay sidii uu hore u sheegay dad badan horta markaas iskuullada kama bixi jirin Soomaaliya oo dhan waxaan filayaa markaan xalana isugu nimay waqtigaasi kun kamaana badnay kun qof markaad garan kartaa yaraan tahay qaabkaan ku tagnayna wuxuu ahaa beriga hore de markaa uu ka baxo ardaygu secondary-ga oo kale isaga istibarayay xamar tegayay mara qofkii aan cid ku lahayn waqtigaasi yaa waxayna inta laga inay dhibaato kala kulmaysay laakiin lahaa niman walba inaantay dibitaati daadinayn ama aan daba gaabidayn dameerka aw galba uu dilay marka waxay xaqiiqdii waxaan oran karaa dhibaatooyin bay la kulmi jireen ardaydu marka ka baxaan secondary-da haddii aanay haynin marka cid ay ugu tagaan muqdisho kale laakiin anagu fursad wanaagsan ayaan anagu arkay inaan helay waqtigaas waa idaacadana looga yeeray waxa la yiri dadkeenii imtixaanada ka soo gudbay kaalay muqdisho wiig markaan joognay waxaana lagu xareeyay xalan 3 bilood markaan ku jiray intayadii ka soo baxday dugsiyada Ingiriiska lagu dhigayay iyo kuwa Carabiga lagu dhigayay ayaa nala soo saaray macallimiin noqday shaqada qaranka kala markii dambe sanadku dhamaadayna liiska iyagu baa lagu soo dhajiyay qof waliba lagu tagay marka dhinaca marka laga eego fursad baa xaqiiqdii aad u wanaagsan وهاجاج مر هدي آذن يونس يو شيخ دلمر بيس كو وقت يحاين آذن نقول فلان يونس وقت ياسنيسية هدان الشيخ دلمر ويا معضو إن يروما كودر لها قاب كلو قادني runtii waxaan u malanayaa dhowr iyo 80 qof baa lagu geeyay wasaaradda warfaafinta filimada iyo soona iyo idaacadda iyo maamulka lacagta iyo baana loo qaybiyay intii idaacadda loo qaadanayay waxa la yiri imtixaan gooni oo voice test codka la qiyaasayo ayaa la idinka qaadaya waan garanayaa aniga iyo Yoonis iyo nin la yiraahdo Abdul Karim oo markii dambe soona noqday ayaa isku mar iyo nin la yiraahdo Abdi Saciid Ali Alloore lagu naanayso oo aanu maranay markii uu burco joogo afartiyaas mar wada galay dabeed aadan Yoonis aniga
الله يرحمه عوكي رحمة الله عليه سجن عبد إدريس محمد هذا انتهى رجع عن كاسة عدكي يو وحللي أخريا أيام نكوس وقال marka ma cudun baa lagu qaadan jiray aqoon kale ma jirin oo iyo inaad ingiriisidana akhriyi karto af soomaaligana akhriyi karto su'aalana lagu weydiinayo laakiin aqoon kale isku xidhiino saxaafadda inaad baratay yaankaas de saxaafadii markaas abana la baray shaqadii iyo tababarkii ayaa la isugu kadaray anigu markaa runtii labadan saaxiibaday inay soo dalbadeen kala garanmay laakiin anigu waan soo dalbaday warfaafinta idaacadda lafteedana waan soo dalbaday واتعلي وانا نحلها إن هذلو وندوني تكلا شغالها الدولة ماشي اللي دونا لقوا توريا مركا هداد حنانا ده حوالها تكتو أما معالي النقطة دي تولو اللي هي ده اللي هو لقيا بين سنة ده بدأ كسر نقول وقت كده مستعد لقوا دريا لكن وعند هدي راديو مقدش عاد كتكتونا راديو هرجوس ما لقوا بدليا لبدا مجاله وده كوجو يروح بعد كده حيناس حرف ده تلوي يرجعتي مد بس أن يعني حوجا الله يابا مركا يرى راديو جنك كوجر وانك بقنشري وح أنا ركي أنا باشا كهرلي والله يقع عبسي جنبك حرف راديو وراي محمودو الدنيك راديو جا لقوا يري هالك شوكا مالنتي مركا إنه ماشي تقني أنا لسود ويني الله يرحمني ولا عبدي كوبتون ودوان حجابتي أيا ورئيس جودو أنا لقوا سود ويني إذا عاد marka aanu ka soo baxnay waxay baan ka fikir wax ka mid ah ninkii aad ka baqan jirtay Sacuudiga adiga noqday ma ninkii radioga marka intaas uu marraacin lahaa haddaan kugu sii daro saxaafadda ama warbaahinta waqtigaasi lodkiinaasi aad soo marteen iyo ta hadda imkaan taaganahay 2017 farqi nooceeya baa u dhaxeeya soo kartaa dal marxab farqigu de wuxuu ku xidhan yahay duruufta waqtigu waqtigii ma dadkuna dadkii ma qalabkuna qalabkii ma annagu de waxaan ka warrami karaa oo idaacadii aanu tagnay idaacadu waxay idaacad dhisan qalab ahaan iyo dadka ka shaqeynaya dad khubaro ah baanu tagnay runtii af Soomaaliga iyo basic radio work shaqa hawsha caadiga ah ee hawl maalmeed idaacadeed dad inay cid wuxuu sheegaan mooyaane aan u baahnayn wax looga sheego dad af Soomaaliga aad moodayso in loo diray in ay tanaadiyaan oo ay tawsta ka dhowraan oo ay kordhiyaan ay wax ku daraan waanay ku dareen runtii wax badan oo idaacadu waxay ka badad meel af Soomaaligu uu ka koro oo ka hana qaado annaguna dadka markaan ku xidhanay waxna waanu ka baranay markii dambena han baan galay iyaba rag ba alla ka dhigay intaas soo kordhiyeen bal idina istiilo wax kordhiya ilaa hadda waan ku guuleysanay marka meel dhisan bay ahayd xaga yani maamul ahaan iyo magaranaysa socod ahaanba laakiin mid baa jirtay xorriyad wax la ma jirin dawlad wadankoo dhan gacada ku haysa oo aan safaad aqoon oo erayar hadduu si bajara yar ay zooneen ka maro aad baxar ku galiis waxaan ku darayaa xaq waxaad su'aashaada ahayd baan u maleynayaa inaantay sidii waxbarashada xaggeedii baad moonayeed waxaa jirtay inaantay maalan idaacadda iyo booliiska oo kale haddii goor waxa loo diri jiray wadanka Jarmalka markii tababarkii gudaha aan oo qaadanay dadka caynkaas ee dalmar ka sheekeynay oo la shaqeynay oo haddii goorna lagu dabagelay moogtay intaad hadal akhrido lama dhaafin waxa lagu oranayaa erayga aad maanta isticmaashay meesha kuma haboonay هذا فوق برال لير هذا أدير واحد ما أنت الهيد أبولي شيء سواء والجود ده بقلت كلا واحد شرتي مع إلى وزير كاسو في السنة واسماعيل على بكرها أنت برنامج هذا الصادقه أي اللي قد ودي ولا برنامج كاس محوك هي محوك ونكسيه هذيك اللي فهمت مركز كنت شرتها بركة عد بقى شيء قرينسا وركة مركز خريسو وحول مدول مركز وركة سيد قولي شرتين وركة حوي وكالتها أي سود الشري iyo wakaaladii wararka wixii gudahana wakaaladii wararka Sona ayaa sameyn jirtay waxa dabadana Reuters iyo AFP waxa laga qaadan jiray sida imaka ma aragtay materialka badan ku jira maaha marka waxaan tag jiray sanadii dheeraad training West Germany loo day Force of Germany Dodge Valley
oo aad la soo gelayso tababarkaasi dad ka yimi wadamo kala gedsan waa tahay aad baad mahadsan tahay waqtigiinii wariyaashiinii soo shaqeeyay inta badan waxaa la dhahaa wariyaal xul ah oo lagu kalsoon yahay bay ahaayeen kuwa haatan joogana inta badan aqoontooda tayo waa laga dayriyaa qaarkood taa qudheeda maxaa u sababad isleedihin Yonis horta gaari waayaan aanu ma odhanayo laakiin way wada gaadheen lama odhanayo halkan berigaa horta sidii sheekh dambe uu sheegay saxaafaddu waxay ahayd xidigtii October iyo radio Muqdisho iyo radio Hargeysa oo iska noqday moogtahay secondary iska noqday oo waxaana jiray waxaan sasta faafreebka la yidhaa oo saxaafad xoriyay mabay jirin iyo wariyaal xor midna muu jirin halkan imika Soomaaliland oo kale mesela haddii aan eegno ilaa intii ka dambeysay dagaaladii iyo Soomaaliland goonideeda isku taagtay saxaafadda badankeega iyo hay'ado badan oo kale oo xawaaladuhu ay ka mid yihiin oo isgaarsiintu ay ka mid tahay oo sariflayaashu ay ka mid yihiin si habaqlay u abuurmeen runtii oo aan nidaam dawliya markaa lahayn iyo sharciyo oo aan madaxa bannaan ayay u abuurmeen oo sharci xukumi iyo qorshe la dejiyo waxtoona aanay lahayn intii horena wax iyaga baa lagu jiray nabadeyn oo ka dhigis dhidibada oo aasakan ilaa maanta tayadu waxay la liidataa ma aha tiradii baa badatay runtii telefishinadii baa toon jiri idaacadihii baa halkan inkastayna badan laakiin gobolada Soomaalida kale markaa eegto way bateen wariyaashii baa batay iminka wariyaasha madaxa bannaan website-yada iyo wasaaradda warfaafinta qura 800 oo shaqaale ah leh kuwa madaxa bannaan waa 200 tiradii ha badatee tayadii lama jaan qaadin runtii tayadii lama jaan qaadin waa tahay aad baad mahadsan tahay waji maxaad ku dar leh aan ku yara noqdee xagga doorashada raggani iyagu iskandari ka baxaa la qaatay anigu markii aan gelayay waxaan ku galay macallimiin baanu ahayn waxaa loo baahday macallimiin jaamiciyiin dad jaamiciyiin oo ku biira loo baahday wasaaradda oo 10 qof marka waxaan lagu qaatay part-time imtixaan baanu galay tiyaatarka ayaa buuxsamay oo maanta riwaayad la daawanayo dadkuna wada biilgaabsi buu ahaa mushaharka ay baa la doonayay kale la qaadanayo kunada saasaan ku soo galay 10 anuu kamid ahay annagoo macallimiin ahayn oo jaamiciyiin ahayn oo secondary wax ka dhigaynay ayaan soo galay markaa warfaafinta dad badan oo part-time oo saa ku shaqayn jireen way jireen markii dambe waan ku wareegin qaar ka mid ah anagii laakiin waxaan xusuusin lahaa oo kale in yar marka aan iska rab dhigo maanta iyo maalinta iska rab dhiga waxay si jiraan aryadu qalabkan maanta la haysto lama haysan xorriyadda la haysto lama haysan waxaanoo maanta in isgaarsiina iyo fudaydii ma jirin dadkaas waxay ku shaqaynayeen waxay ahayd karti iyo dadnimo iyo adag pressure uu haystay waa ka yunus sheegayo de xorriyadii ma jirin bayada waxaan sidii xusuusin lahaa maanta guri walba waxa yaala sata waxa intaasoo channel baa la daawanaya oo hawada ku jira oo af walba ku hadlaya intaasoo Soomaaliya oo telefishan baa jira intaasoo wargeys baa soo baxa subaxii idaacadaha kale inuu ciida ka badan inaga deekeeni radio Hargeysa waa jira radio kullu maalintii la bilaabay hadda bay idii sheegay qisa ka dhacday oo wanaagsan oo loo wadna salaanta xagga danga salaanta markuu tijaabiyay gaalka Ingiriiska radio-ga ayuu qaaday receiver yar oo radio ah maalinba Facebook la baxay Hargeysa oo ku soo dhageysanaya baradaris inta uu gaarayo radio maalinba markaa ku soo ilaabay geed Hargeysa duleedkeeda radio-ga yara isagoo furan buu kaga yimid min caraabo oo markaa socda radio-ga helay wuxuu mooday wax cadaa waxa muxuu yahay wuxuu soo dhaysha iska qaata abaan markuu socday soo gashay tijaabadii oo tira assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh halkan waa radio kullu masuu calaykum assalaam xagana laga salaamo bana salaamo markaa uu aamusay baalkii ninkii haddana abaan buu socdo muu garan mar labaad salaantii labaad baarka baalkii buu tuuro uu carreelaa reeri wuxuu yiri laqad nadaqa alxadiid birtiba hadashay adduunka waa la rogaya aw hebel oo soo xado baa loo socdo baalkii baa la helay waxa la geeyay reeraha buu hadli waayay ninkiina nin oran kala been baa sheegaysa ma nu weyn buu iyadoo la yaabay loo wadeegay baalkii bilaabay tijaabadii wala assalaamu calaykum wallahi waa ka hadlay hal qabto aw hebel loo yiro quraan baa lagu akhriyay soo aakhirkii waa la gubay aakhirkii waa la gubay maanta waxaynu arkaynaa horumarka la gaaray iyo in aynu daawanayno live waliba mobilkaaga aad ka daawanayso meesha doonto oo ku wada hadlaysa oo soo baxay social media
dhalinyarada maanta waxaanu dheerayno keliya waxaa la yidhaha basic knowledge annagu marka aanu saxaafadda soo gelaynay aqoontaanu soo baranay biology waxbaanu ka naqaynay chemistry physics general knowledge dhisan inamada maanta waxa yare ka maqan xagga saxaafadda barashada iyagaa nagaga horeeya laakiin basic knowledge baan ahayn waxaanu ka codsan lahay in dadka loo xolayo saxaafadda qualificationska lagu xolayo si berigii oo kale at least laga dhigo inankani inuu isagan jiray ama inantani ka soo baxday noqonaya Faisal maxamed cabdi Faisal fadlan isaga laftiisa siinaya oo in badan warbaahinta ku soo jiray Faisal adiga laftaada waa mahadsantiin anigu real waxaan ahay bridge-kii qoladan iyo qoladan isku xidhayay oo qolada horena waan ka soo gaadhayo rag badan oo aadan oo kale markii uu isagoo shaqada uu ka tagay oo Soomaaliya Airlines ka shaqeynaya ayaan anigu soo galay shaqada ducaalo kale oo imika naga maqano inuu naga qayb galay ahaydna isagoo fadhiyo gadweyn oo madaxa barnaamijyada idaacadda radio Muqdisho ayaan maxamed waji waan ugu yimid ragii aan radio Muqdisho ugu yimid isagoo madaxa ayuu ka mid ahaa waagii dambana marka anigu waxaan horta biriishkii labada xadaaradood kuwa hore iyo kuwan dambaba waan ognahay in aad tahay macallin hadda saxaafadda dhiga waxaad soo saartaa sanad walba dhalinyaro aad u tiro badan oo saxafiyiin ah kuwaas oo hadda qaarkood ay caan yihiin balse dadka ku dhaliila Faisal waxay dhahaan Faisal wuxuu saxaafadii ka dhigay jaantaar rugan oo wuxuu sanad walba soo saaraya dhalinyaro aad u tiro badan oo qaarkood tayoodii aqooneed aanay aad u dhamayn taa maxaad ka jawaabi lahayd waayahay waxa Soomaalidu tiraaful haltii sababooga waa run oo 90% ilan baa maalin wareysatay cilmi baaris sameeysay akademiyada markaas waxay tiri sidaa isla waxaan yiri aniga ka wakiilaban waxa laala waxa mashaakilka meesha ka dhacaya laakiin dhinaca kale markaad eegto sababaha anigu aan u sameeyay waxa weeyaan waxaan ahay ninka qura inkastoo laba oday hor fadhiya ay markii dambe waxaan la dhigdhigaan laakiin markii waddanka la soo galay ee raggu dabar go'ay aniga rag badan oo kale oo asxaabteeda jaamacadaha ka soo wada baxnay laakiin waxaan ahay ninkii kaadirkii qurahay anigu u babac dhigay inaan challenge siiyo oo aan ilaa maantada saaka laba galay xiisadood ma shalay too kale laba xiisadood baan galay gelikii dambana 3 baan galay halkaas waa imse class marka ardaydan aad qaadanaysid maxaad ku xulataa qudhaada ardayda inta badan waxaan ku qaadanaa arday badan oo quality leh baa iyaga fadhiya imika ninkaas oo kale waa ragga maanta star ayuu ku jiraa inantan oo kale waxay ka shaqeysaa iyaduna telefishinka qaranka marka rag badan oo kale oo caana ilig baan soo saaray waxaan soo saaray barkhad bacawaalan soo saaray shirwac baan soo saaray sahraan soo saaray yacni waxa weeyaan waxa laala waxa saxaafadda ka soo saara marka waxaan kolley ubaxu ma wada noqdo midho laakiin haddii aan dib ugu noqdo qolooyinkaygan baan oran lahaa inkastoo Yoonis iyo maxamed wasaaradda tareen in badan ay qaateen labaduba laakiin taalidiin sheegay dal maro kale waxaan ku challenge garaynaya bari dhootaan isla jaamacad fura waayo waxaan ogaaday anigu to my experience waxaan ogaaday inamadan marban jaamacadda Hargeysa ka dhigay marka Pennsylvania ayaan professorkii online la hadlay waxaan ku yiri inamadayadani goormay wararkan sensitive-ka ay ka tagayaan wixii waa marka aqoon la siiyo marka jaamacadda new generation ayaan ka bilownay laba arday qura igu yimi waxaan ogaanay in haddii jaamacadaas oo kale ardaydii loo dhigo inamo iskuuladii waan xiraya anigu oo iskuulka waxaan u diyaarahay jaantaar rogantaa ilaa joojiyo aad u maasantahay ku soo noqon doona Faisal aadan maxaa ku dar lay waxaan filay horta inaan taasho waxa ay qabsantaa laba waa mid farsamo iyo content wixii galaya meesha farsamadana marka imika eegno aad bay isu bedeshay oo markaad eegto tasdaxaadna ku daro horta waxa weeyaan aan tiri waa inuu maamul yeeshaan oo haddii aad heshay sawirkii laakiin waa inuu jiro nuxurkii meesha ku jira kaasina wuxuu u baahan yahay research inaad baadho oo warka aad sheegaysaa inuu noqdo mid Suudaan مثلا annagu markaan BBC joogno kale waxa laga yaabaa war baa soo dhacaya news item ahaan marka warhaan loo sheego halka laga tagi maayo dispatch baa laga sameeyay oo ka sii turugsan hadda dispatch joogta laga tagi maayo halka file laga qoraya
faaladaa lagu joogsan maayo feature baa laga samaynaya oo codadkii iyo waxa markaa qofkii waad ka dharginaysaa qodobkii waad ka dharginaysaa waan ku dhageysan karaa halkii inaante xaaji cabdi cali ayaa nin ingiriis oo la shaqeynaya ka sheekeynaya wuxuu odhan jiray haddaad wariye tahay waxaad marti ku tahay ruux gurigii ama telefishan ka hadal ama idaacad ka hadal haddaanad markaa u sheegin wax uu ku qanco ilaa waxbarashaad samaysa eego xaggan warfaafintu waxa weeyaan you are educating the people waxa weeyaan soo waxbarid madadaalo saddexdii waa garanaysa baan u malaya soomaad garan marka qofkii waa inuu ka helo wixina waa inay noqdaan wax isku xidhan waa imika markaad eegto okay waa ballaaratay qof waliba kamaruu sita tartankaasuna uu kugu batay ogo berigii hore dee waxa tartamaya waa yaray ama idaacad haado ama jaraa'id haade laakiin imika waxayaan dee inan baa kamare la wareegaya suuqa deetana sawir buu qaadayaa islaam baa kuftay wuu sawirayaa war ahaan wax ku jira eegi maayo deetana internetu gelinaya facebook gelinaya waxaan kaa moogtay waqtigiini ku jiray Soomaaliya waxa weeyaan coordination kibaa maqan moogtay cidii waxa isku xidhisay ama radio haado ama television haado oo story ka dhigaysay xuutan soo yar noqonaya balse Yoonis markaan aan dhiibo waxaan jeclaan lahaa inaan idin weydiiyo waqtigiini idaacada ayaad ka shaqeynayseen oo maysan jirin television aad u badan waqtigan waxa la gaaray in TV-da ay soo bataan maxay soo kordhiyeen iyagu qudhood TV-yadu horta dhinaca markaad aragtida way soo kordhiyeen xorriyatul qowlkii bay soo kordhiyeen oo waxay soo kordhiyeen kor u qaadis xaggii visionka aragga oo qofku hadda daala ka sheekeynayso dee awal daala inaad sawir u hesho muujiso kale uma tusi karay oo haddaad ka sheekeynayso tsunamidii practical waa tusi karay ama la dhaho taa way soo kordhiyeen oo waa horumar teknolojiyo iyo horumarkii journalismka oo kor u kacay laakiin taya ahaan runtii wax badan oo ay kaga duwan yihiin idaacadihii anu waxban isleeyahay wax badan oo ka liita oo waxaad arkaysaa nin caaqil ama suldaan iska laabta garaacaya oo leh haddaan reehbelnahay haddaan taa la yeelinta haddaan laga naasin ururkan aad guddoomiyaha ka tahay guud ahaan wuxuu isku hayaa waa saxaafadda Somaliland marka caqabadaha idin soo wajaha amba qaabka aad idinku u shaqaysaan haddana yar naga wixisiin runtii dabcan sida odayaashu ay sheegeen saxaafaddu halka kusoo bilaabantay iyo horumarka maanta la gaaray runtii waxa weeyaan dee masaafad aad u dheer halkii baan kusoo noqonayaa runtii waxaan doonayaa tusaale kooban soo qaatay dee horumarka waqtiga odayaashu ay ka sheekeynayaan iyo maanta halka la marayo maadaama halka Faysal uu sheegay aan dee intaan qodada yararahay Faysal iyo kasii dambeysanahay waxaan xasuustaa markaa kamarada waqtiga aan bilaabayay dee waxay ahayd black and white bahay kamarada sawir color haba yaraatee muu jirin colorku wuxuu soo maray process kale ah in iyadoo aan color ahayn sawir casuusa oo bini'aadanka muujigiisa loo ekaysiinayo dawacaynkaas lagu sameyn jiray markii dambe ayuu color ku soo baxay statementki meelahaas oo Apollo 40 meelahaas ay bilaabeen marka runtii dee tadawurka halka ka soo bilaabay oo kanaysa maanta markii social media soo baxay waa heen oo kale markii aan bilaabanay website baan ku bilownay runtii markaan waraysi doonay soo cid waraysi wuxuu oran jireen halkeed ka sii diinaysaa wax markana website baan ka baahinayna wana la yaabi jireen muddo badan min waqti waa ta keentay markii dambe inaan wargeyska samayno markii ay caqabad naga timid social media runtii dee tadawurka intaa leeg wuxuu u baahan yahay dadkiisa iyo aqoontiisa iyo xirfadiisa ayuu u baahan yahay runtii waxaan arkayaa anu oo maadaama maanta dee hoggaankiisa aan joogo runtii duruufo fara badan oo odayaashana runtii ay wax ka taabteen in loo baahan yahay runtii sidaas saxaafadda Soomaaliland ay soo martay ama saxaafaduba runtii dee practical ba inta badan rag halkan jooga ay ku soo wada mareen waqtigii Faysal iyo baa laga yaabaa dawladdii kacaanki inay aqoonta saxaafadda jaamacad u furtay oo rag qaarkood ay ka faa'iideysteen ilaa maanta mushkiladii way taaganto dagaaladii markii ay dhaceen ilaa maanta ma jiro iskuul saxaafadeed oo dhammaan Soomaali oo dhan ama geeyiga Soomaali ku hadasho dhan runtii ka jira ma jiro Somaliland waa sidaas oo kale marka baahida ah dhibaatada taala sidee looga baxaa waxa weey runtii waa taa aqooneed waxaan qabnaa oo runtii dee muddada aan waayarnimada imika aan u tahay dee dadka kale ajnabiga marka ay muddo soo shaqeeyaan way retire gareysmaan dadkooda uga faa'iideeyaan runtii dee waxa ay soo barteen waa aad baad maasantahay dhalinyarada way siin doonaa dee odayaasha waqtigeenu inuu yar yahay aad baad maasantahay ay dee galaan looga baahan yahay sidoo kale dee dawladda issuegan saxaafaddu waa issue qaran weeyaan in dawladuna runtii fursadda ay ka faa'iideyso oo maadaama oo dhibaatada ka imanaysa qaranka saameynayso ama adduunyada ay saameynayso runtii waa aad maasantahay dhalinyaradana way siin doonaa balse su'aal baan ka horeysiisan lahaa su'aashaasi waxay tahay inta badan wariyaasha ku sugan Soomaaliland oo kale markaan eegayno
caqabadaha ay la soo kulmaan qaarkood waa xarig iyo waxyaabahaasi oo loo geysto idinku waqtigii aad shaqaynayseen maxaa caqabadaydii hor taagnaan jiray dalbar baan ku bilaabaya runtii dee caqabadaha annagu waxaanu ahayn dabinkabood dowlad aan safaad aqoon inaanu u shaqaynayno waan ogeyn marka laynkaana loo dhigay maanaan dhaafi jirin sidaa daraaddeed wax yacni khatar ah adoo dee lugtaada ku doonto mooyaane lamaanaan kulmi jirin laakiin arrin muhiima baa taabatay oo yacni xadhigga suxufiyiinta la xidhayo iyo xorriyatal qowlka ma lagu xadgudbay haddii suxufi la xidho labadii qolobo waa cabanayaan dowladdeena waxay leedahay dee qawaaniintii iyo haybaddii dowladnimada ayaa maxaan ku rahdee la cagacagaynaya suxufigeena wuxuu leeyahay oo dee gar ah dee erey xor ah iyo weedh madax bannaan baan ku noolahayba oo dadkana kula noolahay taa haddii dee la igu yimaado maxaan ka noolahay halka markaa la iska dilayaa ee ilaa iminka u baahan in wax laga qabtaana waa qawaaniin kala saarta waayo suxufigu dee xorriyad aan xad lahayni ma jirto waa karaamada qofka privacygiisa iyo waxa sharafkiisa taabanaya qofka ugu yar ee ugu tamarta yar mujtamaca ilaa madaxweynaha dee cid aan yani ay bannaan tahay in lagu xadgudbaa ma jirto suxufigu haddii uu meelaha galo qaanuun qabanaya waa inuu jiraa xukuumadduna dee inay yeelato sabir oo wax walba aanay ka xantan oo wixii lasoo qaadaba maxaan ku rahdaa wasiir hebel baa loo sheegaanaya qaanuun kala saaraya legal waa inuu jiraa madaxweynaha matalan waa la daliili karaa waa laga hadli karaa laakiin shakhsigiisa maaha waa policyga iyo siyaasadihiisa laakiin bedroomka madaxweynaha intaasu macuusood baa taalla ee maxaa ku geeyey weeye waa ma bannaana qaadaa waa la sheegay waxyaabaha ay ka mid tahay waxaa kaloo ka mid ah bini aadan baad wax u sheegaysaa inaanad jahawareerin oo waxaad u sheegaysaa ay wax sugan noqoto oo xogogaala oo looga qaateena oo tixraaceega leh oo isku dheeli tiran oo cid walba ra'yigeega ku jirto mowqifyo kala gedisana hadday jiraan weeyi marka maxaa loo baahay in xeerkii uu jiro in tababaradii manhaj ay leeyihiin inta badan tababaradu way badan yihiin laakiin manhaj weli midaysan ma leh laakiin waxa ugu weyn waa maxay ee innaka saxaafadeena ka dhigaya ma ogtahay waa baahida runtii markaan runta isku sheegno suxufigu noloshiisii waa inuu ku tiirsanaan cid isaga adeegsata oo isticmaasho si khaldan u isticmaasha ama dana siyaasadeed ha ka lahaado ama dana propagando ama dana masabdoon ha ka ahaatee si uu taa uga maarmo waa inuu noloshiisii ka helaa saxaafadda lafteeda loo shaqeeyaha waa inuu damaanad qaadaa suxufigan inuu siinayo noloshiisa wax ku filan intiinaba lii sheega qofka mishaahar ku filanayaan qaata ilaa runtaynu isku sheegana inta jariidood ii sheega qof jariidadiisu ay ku filan tahay in shaqaalihiisa uu mishaahar siiyo ama website-ka ay mishaahar siiso marka waa in la helaa qaab qofkani suxufiga uga maarmo in uu war khalada oo laga yaabo dhaqaalo ugu xidhanayo ama dana kale ugu xilanayo inuu faafiyo waa saxaafaddu isku filaataa aad waad mahadsan tahay bal markana waxaan siin doonaa ka qaybgalayaasha barnaamijkan oo iyaguna ah dhalinyaro wariyaal ah oo ka shaqeeya warbaahinta maanta oo dhan mar haddii ragga una hadlayeen inan kaliya ayay nala joogta nimco shirdoon waxay ka shaqeysaa telefishinka qaranka somaliland nimco maxaad soo kordhinaysaa oo fikir ah iyo haddaad su-aal u qabtidba qolyahan caawa martideenoo ah runtii saxaafadda somaliland maanta iyo shalay way kala fog tahay oo wax isku dhow maaha waa gudcur iyo cadday kala tahay hal su-aal ayaan qaba anagu midna waan ku wanaagsannahay maanta oo waan idinkaga sii nasiib badannahay waqtigaad ku jirteen ead ku sugnayteen taan qaba haddii aan horreysiiyo rugcadaagan wariyaasha caawa jaaniska aan u helay waxa weeye idinka ahaan waxaad noqotay rag caan baxay oo maxay toolay aqoon iyo dee nolol adag aad kusoo gasheen saxaafadda si aad caawa halkan ka dhawaajiseen kadib markii aad saxaafadda ka fadhiisateen amba qaarkoodna ay ku dhex jiraan ilaa hadda idinka wax idinka go-oon oo isku tagga amba saxaafadda somaliland amba saxaafadaha kaleba ha noqotay aqoontiina aad ku caawinaysaan oo aad maxay toolay go-aamo adag amba shuurado adag aad u dhigasaan ood khalaadaadada saxaafadda ay ku jirto aad ku qabanaysaan aad ku hogaaminaysaan
maxaa idinka taa idinka yaala amba u dhici weyday ma maqal mana arag saxaafadda Soomaaliland waa dad dhiga nugul dad fiican way ku jiraan waa in yar intaasna waxay u baahan tahay sida gudoomiye xuuta sheegay in aqoon badan ma haystaan oo iskuulo badan oo aqoon soo saara ama jaamacado ma jirto Faisal Fafalaad baan ugu mahad celinayay waa ninka qura maanta arligaas uu banaanaan lahaa haddii aanu annagana soo saarin is dhageysan lahayd arligu marka waxaan jeclaan lahaa in aad aqoontaad haysataan intaydaan bal dhiman si lagu kala horeeyo alla oge bal inaad kaydun ka tagtaan ururka gudoomiye xuutaad baan ugu mahad celinayay isagoo qayb weyn kaalin weyn buu ka qayb qaataa inaad la garab istaagtaan oo iskugu timaadaan aqoontiina iyo maskaxdiina iyo maalkiina aad haysaan inaad gelisaan oo uga faa'iideysataan oo taariikhda aad leedihiin magaca aad leedihiin aad kaga tagtaan aad maasantay nimco Cabdixakiim baan siin lahaa isaga bismillaahir rahmaanir rahiim qodob dhalinyarada waan ka yara weyn ahaan malanayaa anigu saxaafadda halka kuma bilaabin waxaan ku bilaabay dalka Ingiriiska aan ku bilaabay saxaafadda waxa sida ay wariyaasha hore sheegeen laga soo dheegtay dalka Britain laga soo dheegtay Britain saxaafadda heer buu soo maray qarnigii 18aad dabeeqadiisii markii jaraa'idadu kor u kacayeen waxa iyaduna kor u kacaysay dhaqaalihii iyo siyaasaddii iyo arrimihii bulshada wax isbarbar socday ahaa isbarbar socodkaas wuxuu keenay inay horumar dhinacyo badan ka keenaan had iyo jeer anuu jaraa'id baan ka bilaabay anigii koox kale oo Qadar Xasan iyo Kaysar iyo group ay ku jiraan maalintaan bilaabnay waxa uu ahaa 8 page maalintii ugu dambeysana 24 page oo color oo jaraa'idka ugu weyn ee circulationka ugu weyn ee London waxa la yiraahdaa Sun uu meel kale soo bixi jiray saxaafaddu dhinacyo fara badan oo idinku waxaad hesheen institution dhisan ayuunbaad qayb ka sii qaadateen ku hormarteen laakiin saxaafadda iminka jirta waxay u eg tahay saxaafaddii qarnigii 18aad dabaaqadiisii jirtay oo qof isaga ayaa istira isaga ayaa halabuur leh halka idinkii one-way communication keliya oo xiriir keliya aad markaa la heedeen iminka laakiin waxaad moodaa BBC-da oo ka soo shaqaysayno BBC-da siyaasadaheeda iyo arrimaheeda oo la institution dhisan oo marka qaar ku dhacayeen 1995kii Jan Atkin Treasury Ministerkii markuu ahaa waa Blair Broadcasting kee way jirtay marka xaaladuhu iyo waqtiyadu way kala duwan yihiin dhalinyarada iminka jirta dadaal aad u fara badan oo dhinacyo badan bay sameeyeen ilaa ay isbarbar socdaan siyaasadda qaranka ee dhaqaalaha arrimaha bulshada iyo saxaafadda ama culture-ka ama dhaqankuba ilaa taa la helo horta wax badan xal looma helayo waad maasantahay Badri ayaa mikrofoonka haysta maxaa ku darleed odayaasha saxaafaddu arrimo badan bay ka sheekeeyeen oo maraaxilkiisa watay oo adkaa marka aad maqlayay arrimihii aad imika ka wada hadlayseen oo aad u adkaa oo dabcan malahaana waana kaba bixi karneen haddii xilligaan soo gaari lahayn si kale marka loo dhigo hadda dee odayaal wadadaa oo muraahida xidhan oo waqtigooga hadda iska oo si aanu u doonaynay in ama buga ka hadhaan ama taariikh ka hadho ama ayagoo cashar si kale u bixiyaan oo halkii islaantii tiri inantayda ninkaasi buuran aan arkayaa kama dhali waayeen uu hagaraday oo aanu qabno fikra caynkaas inaad hadda inta hadhay aad istaba qabataan iyo dardaarankeegu yahay oo ka bax aad baad maasantahay guddiga gabagabadii dabcan soo gaarnay dhaliisha waxay digay du saaran tahay Yunis dhaliisha su'aalihii inagoo isku soo wada xirnay su'aaladeedii la soo jeediyay iyo dhaliishu runtii waa garan waa wax meesha ku jira xaqiiqa ahaan oo roolkii loo baahnaa maana wada qaadan ama daacno ahaano oo tabar naga noqoto ama ka urur ahaan la midaysan yahay marka meel wax la wada dhigo ha ahaatee sida uu isagu sheegay xuuto mushkiladda ugu weyn horta qof wax ma taro kelidii qofku institution maaha institution buu caawin karaa laakiin isagu institution maaha oo hay'ad maaha waxa loo baahan yahay oo meesha ka maqan institutionskii haddaba horumarinta iyo kor u qaadinta saxaafadda sameyn lahaa taasina qof kelidii ma noqon karo in si ka weyn sidan imika la iskaga kaashado ayay u baahan tahay oo laga shaqeeyo ta kale waxa weeye lafteedu maalan anuu haddaan iska soo qaado sanadii ugu horreysay yes waan la shaqayn jiray laakiin waad niyad jabaysaa runtii waxaad ku niyad jabaysaa iyada oo duruufaheega leh
wixii aad waday ama tababar ku bixinaysay oo wax ka gedisan uun subaxa dambe aad arkayso practically aan dhaqan gelaynin biniaadamku way ku yarina jeedo waa taaba khasaara soconaysa hataa haddaad bilaash ugu samaynaysa waana tahay meesha maxaa ka maqan waxa ka maqan baahidu waa inay ka timaadaa hay-adaha warbaahinta iminka wasaaradda warfaafintaan jooga media consultant baan u ahay waaxyu waxbay ku arkayaan ragga joogay madaxdagii inaad masabkooga ku tahay duulaad hadda runtii weli ma arag telefishin madaxa inta yidhahdaan barnaamijka nala hagaaji xaqiiqa ahaan waxaad moodaa dadka inta badan dibadda ka yimid in la iska yara ilaalinayo halkii waay aragnimadooda laga faa'iidaysan lahaa waan inta kale uga baahan dhammaantiin waxaan idinka mahad celinaynaa waqtigeena qaaliga ah iyo sida aad nooga faa'iidayseen waayo aragnimadiina saxaafadeed waxaan rajaynayaa in kuwa badan oo ina daawanaya iyo annaga iyagan barnaamijka daadihinaynaaba ay waayo aragnimo noo dheeraada ay caawa aanu helay daawadayaal intaasi waxaan kusoo gabagabeynaynaa waa barnaamijkii gaarka ahaa ee aanu ku falanqaynaynay saxaafadii hore iyo saxaafadda haatan farqiga u dhaxeeya daawadayaal barnaamijkan ka ku xigana waxaan idin ballan qaadi doonaa in barnaamijyo kale oo aad tabaysaan aan idigu soo gudbino maadaama uu yahay barnaamijka dooda telefishinka Universal TV oo toddobaadkii 2 toddobaad baad hal mar ka daawataan waxaana nagala qayb galay barnaamijkani suxufiyiinta aadka waaweyn Sheekh Dalmar Maxamed Cali Waji Faysal Farle gudoomiyaha ururka suxufiyiinta Soomaaliya Soljan Maxamed Cabdi Jaamac Xuuto Yunis Cali Nuur iyo Daawud aan ilaahdo Yunis aadan Nuuxduule iyo muxuu ahaa dhalinyarta kale ee warbaahinta ka kala socotay barnaamijkan mid lamid inta ku kulmi doono dhamaantii waxaan idinkaga tagnaa السلام عليكم ورحمة الله وبركاته